يا من عصيت الله. asalaamu calaykum. sirta guusha nolosha inaad u hoggaansanto ama aad raacdo talooyinka ay doonaysa nafsadaada run ahaantii waxay kugu hoggaaminaysaa inaad ku dhacdo god mugdi ah oo aan kasoo noqosho lahayn qaab looga soo baxana ay adag tahay. mowduuceena maanta ayaan uga hadlaynaa. ku soo dhowaada mowduuceena. fadlan haddii aad tahay ruux ku cusub islamarkaana ay soo jiiteen barnaamijyada iyo muuqaalada aan ka soo tegin halkan nagula saaxiib oo saar subscribe like islamarkaana u sheer garay oo la wadaag asxaabtaada mahadsan. maanta muuqaalkeenna waxaan uga hadlaynaa haddaba maxay tahay natiijooyinka dhabta ah ee ay u baahan tahay inaad gaarto guusha nolosha. dhammaan guulaystayaashii adduunka markii dib loo baaray taariikhdooda, warbixinadii ay reebeen, dhaxalkii ay ka tageen, run ahaantii waxay ka wada siiman yihiin hal aragti oo waxaa jirta dhammaantood isku mid ay ka wada yihiin. waa aragti aad u wanaagsan markii loo eego qofka fakhriga ah ee doonaya ama ku haminaya inuu guul ka gaaro adduunka. aragtidaas ayaa waxa ay tahay dhammaantood sida ay xuseen kuwii hore ee dhaxalka adduunka uga taga natiijo wanaagsan ha noqoto ama maantay guulaystayaasha adduunka ku nool markii warbixinadooda la eego waxay ka wada siman yihiin in nin walbaahi uu ka soo adkaaday, uu ka hor yimaaday oo uu la dagaalamay rabitaanka nafsadiisa waxa ay rabtay. run ahaantii inaad nafsadaada waxa ay doonaysa ka hor timaado oo aad la dagaalanto islamarkaana aad isku dayda inaad ku hoggaamisa dhabbaha saxda ah ee noloshaada waxay ku horseedi kartaa oo aad ka heli kartaa dhaxal dhab ah oo aad ku gaarto natiijo wanaagsan berrito. nolosha sidaynu ognahay ama nafsaddu waxay jeceshahay raaxada, subaxdii inay sariirta ku daahdo, in ay xilliga qabowga iska jiifto, goobaha qabowga inay tagto, waxyaaba aan wax micnaa ku fadhin in ay maalin walba ka sheekayso, taasoo sababaysa in maalin walbaahi ay ku dhaafto iyadoo aan natiijo wanaagsan kuu xambaarsanayn. waxaasoo dhan ayaa u baahan in laga hortago oo lala dagaalamo. isku day inaad nafsadaada maarayso wakhtigeeda, isku day inaad nafsadaada wakhtigeeda maamusho oo aad saacad walbaahi qorshe gaar u yeesho. isku day in aad kacdo xilli hore aroortii, xilliga dadku kale ay jiifaan oo ay hurdada raaxada ah ku jiraan. isku day inaad kacdo, isku day inaad akhriso oo dib aad u eegto taariikhda guulaystayaasha adduunka, waddooyinkii ay mareen. isku day inaad taariikhda buwaagta akhriso, isku day inaad qur-aanka akhriso, isku day inaad cibaadada waqti dheeraada u yeesho. isku day in aad nolol maalmeedkaada kale saacado u gaargaara u yeesho si ay kuugu suuro gasho berritu in aad maamuli karto qorshaha kale ee soo socda noloshaadana aad ku gaarsiin doonto guul dhab ah. run ahaantii arrintaas ayaa la ogaaday in ay tahay natiijada keliya ee kuu horseedi karta in aad ku dhacda ama cagta aad saarto dhabbaha guusha nolosha. mowduuceena xiga ayaan ku soo qaadan doonaa qayb kale ama sir kale oo laga dhaxlay guulaystayaashii adduunka. run ahaantii mowduucan ayaa inoo xaqiijinaya ama mowduucan laga dhaxlay dadkaas ayaa inoo sheegaya in aysan ku xirnayn sida ay inoo xaqiijiyeen wax qarash ah, wax dhaqaale ah, wax saacidaada oo lala garab istaagay. kaliya ay ku bilaabatay guusha noloshooda in ay ka adkaadeen oo ay maamuleen nafsadooda. isku day in aysan maalin walbaahi kaala tegin mugdi iyo natiijo xun oo ay kaala tagto wax aad bari ka sheekayn karto. tan iyo barnaamijka xiga waa Mucaawiyo idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.